dowladda dalka Qatar ayaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ku wareejisay gaadiid dagaal. xaflad kooban oo ka dhacday tikida weyn ee magaalada Muqdisho oo ay ka soo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga taliska ciidanka xoogga dalka, saraakiil ciidan oo ka kala socday dalalka Qatar iyo Turkiga, ayaa waxaa dowladda Soomaaliya lagu wareejiyay 68 gaadiidka dagaalka kuwooda gaashaaman oo ay dowladda Qatar ugu deeqday dowladda federaalka Soomaaliya. xafladan oo uu hadal jeedinteeda bilaabay Maxamuud Al-Qaazi oo kamid ah militariga dowladda dalka Qatar ayaa waxa uu sheegay in gaadiidkan lagu garab istaagayo ololaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku xoreynayso dalka, isla markaana ay wax badan ay ka bedeli doonaan xiriirka iyo cilaaqaadka u dhaxeeya labada dowladood. dowladaha Qatar iyo Soomaaliya ayaa cilaaqaadkooda uu ahaa mid aad u heer sareeya tan iyo markii ay isbahaysiga ay hogaaminayaan Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ay xiriirka u jireen dowladda Qatar, oo ay dowladda Soomaaliya ay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ayaa waxaa taasi ay keentay in mashaariicyo kala gedisan ay dowladda Qatar ay ka fuliso dalka Soomaaliya, waxaana tani ay noqonaysaa dowladii ugu badneed tan iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sidii loogu doortay madaxweynenimada Soomaaliya ee dowladda ku wareejisa gaadiid dagaal oo intaa gaarsiisan. waxaa xafladda ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin barbar istaaga shacabka dalka Qatar iyo dowladooda ay u muujiyeen dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu ballan qaaday in gaadiidkan lagu difaaci doono shacabka Soomaaliyeed, isla markaana aysan ka bixi doonin gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxaa xafladda sidoo kale ka hadlay wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe oo u mahad celiyay dowladda dalka Qatar, isla markaana sheegay inay dowladda Soomaaliya baahi weyn ay u qabtay in la soo gaarsiiyo gaadiid dagaal oo cadadkoodu ay intaa gaarsiisan yihiin. si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jirta xarakada Al-Shabaab, kuwaas oo ay doonayso inay ka xoreyso gobolada dalka oo ay Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin.